haddii aad jeceshahay barashada CapCut iyo wax ku saabsan maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida aad u samayn lahayd text behind the person oo qoraal ah sida muuqaalkan oo kale. Haddaba haddii aad ka heshay waxaan kugu tusi doonaa muuqaalkan oo nala joogi la dhamaadka muuqaalka waxaanan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saarto haddii aad cusub tahay. haddii aad muuqaalka ka heshan like inoo saar, like waa muhiim. haddaba aan u gudagalno muuqaalkeena maanta. marka ugu horeysa CapCut aad soo furanaysaa ka bacdina muuqaalka aad rabto inaad ku sameysay aad soo qaadanaysaa. aniga hadda muuqaalkan ayaan soo qaatay ka bacdina aad ayaan dhahayaa ka bacdina gudaha markii aan imaado hadda muuqaalka waan iska jaray waan iska haafeynayaa. markii aan sidaas sameeyo oo aan iska haafeeyo sida aad wada aragtaan qoraal ayaan ku qorayaa oo text behind the person macnaheedu waa sidan oo marka hore qoraal ayaan ku qorayaa waxaan ku qorayaa qabiir tej oo kale ayaan ku qorayaa oo farta ayaan weyneynayaa ka bacdina style-ka ayaan wanaajinayaa effect ayaan u yeelayaa effect markii aan u yeelo sida aad wada jeedaan effect ayaan u yeelayaa ka bacdina kor ayaan geynayaa waan weyneynayaa markii aan sidaa yeelo waan la ekeysiinayaa sida aad wada jeedaan markii aan la ekeysiiyo ka bacdi digta ayaan saarayaa ka bacdi waxaan la ekeysiinayaa muuqaalka markii aan muuqaalka la ekeysiiyo ka bacdina save ayaan dhahayaa oo sidaas ayaan save ku dhahayaa sidaas markii aan save ku dhaho sida aad wada jeedaan save ayaa socota hadda aan wax yar wada sugno. marka uu save gareysmo ka bacdina hadda new project ayaad dhehaysaa oo waxaad soo qaadanaysaa kii aad save gareysay aad soo qaadanaysaa oo hadda aan qoraal ku qornay ka bacdina waad soo qaadanaysaa ka bacdina waxaad soo overlay ayaad dhehaysaa oo waxaad dul saaraysaa kii hore ee kan ka horreeyay aad soo qaadanaysaa labada muuqaal ayaad isla ekeysiinaysaa. aniga hadda sidaad u jeedaan labada muuqaal ayaan isla ekeysiiyey midkan ayaan midka la ekeysiiyey oo waan jaray ka bacdina midkii hoose ayaan ku dhufanayaa oo isaga ayaan remove background dhahayaa sida u jeedaan aan wax yar wada sugno remove background ayuu hadda ama background ayuu ka jarayaa wax yar daqiiqada ayay qaadanaysaa. ka bacdi hadda background uu ka jarmay ka bacdina sidaas hadda u jeedaan boom waa kaas si wanaagsan ayuu kusoo baxay oo qoraalkii gadaal ayuu maray qofkiina wuu socdaa oo qabiir tej ayaa gadaal ku qoran. muuqaalka hadda ka heshay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saarto muuqaalka like noo saarto. hada wasalaam peace and love.